kulanti waxaana wanaagsan caruuray kuna soo dhawaada mar kale iyo sheeko kale oo ka mid ah sheekooyinka maawalada dhallaanka ee ka dhagaysan jirteen dhalaan koriye sheekadana waxay ku saabsan tahay raage iyo rooble waxa la yiraahdaa caruuray bari hore waxa jiray nin daa oo ku noolaa tuulo wuxuu nin kalidii nool wuxuuna sameyn jiray lacaabka ay ciyaalku ku ciyaaraan oo soo saari jiray wuxuu ku qori jiray dhirta ku yaala deegaankiisa maalin kastana wuxuu sameyn jiray nooc ka mid ah waxyaabaha caruurtu ay ku ciyaaraan ee caruurta maaweeliya balse dhibta kaliya ee raaga haysatay waxay ahayd inuusan isagu lahayn caruur u dhalay oo ku ciyaari karta waxa uu soo saaro maalin ayuu banaanka u baxay sidoo soo qaato qori weyn oo ka dhigto ilmo buubee ah oo naftiisa ku maaweeliyo una sheego ugu yaraan inuu haysto wuxuu heshado isla duurka markiiba waxa uu ka helay nooc ka mid ah qoriyihii uu doonayay wuxuuna u soo qaatay gurigiisa sidoo uga qoro ilme buubee ah oo ku ciyaaro markii uu qorista qoriga bilaabay ayaa markiiba waxa uu maqlay wax ka cajibiya noloshiisa waxa uu yiri qorigii awa sidii inuu damqaday oo kale markaasuu haddana isweydiiyey malaha waa dhagahaaga waxaad maqlaysaa markale ayuu ku celiyey oo sii waday qoristii balse codkii cod u dhow ayaa haddana yimi wuxuu isku qanciyay raaga markan inuu yahay nin gaboobay oo hadda daa jira lagana yaabo waxyaabaha uu maqlaya inay daadu u keentay oo isaga dhagihiisa yihiin wuxuuna sii watay qorista qorigiisii isagoo u eekaysiiyay ilmo yar oo xataa qurux badan markii uu dhameeyay oo dhammaan isku xirxiray ayuu duldhigay miis kadibna kor u qaaday ayuu yiri waxaad hadda ay noqon kartaa wehel aan weheshado maadaama aan lahayn ubad kale kursi ayuu ku fadhiisiyay wuxuuna iska bilaabay hawsha gurigiisa caadiga ah oo qolkiisa ayuu nadiifsanayay wax yar kadib ayuu ilmihii hadlay oo ku yiri nabad waxay noqon weyday waqaadan waa soo jeestay markaasuu indhaha kala qaaday oo yiri waan hadli karaa ee saw ma fiicnid xataa waliba waan socon karaa inta uu naxay oo uu tuuray qorigii ayaa yiri subhanallah sidee ayay ku dhici kartaa allah riyadaydii ayaa rumowday ilaahay ayaa mahadle waxaan hadda haystaa waxaan ku dheeli karo kuna madadaalan karo wuxuu arkay in qorigii uu samaystay oo ilmo u noqday kor inta uu qaaday ayuu yiri hadda laga bilaabo waxa tahay ilmahayga oo waan kugu madadaalan karaa wuxuuna u bixiyay rooble maalintii dambe ayaa raaga waxa uu isbaray rooble iyo eegii uu haystay wuxuuna noloshiisa helay ilmo qori ah oo ku madadaasho maalmaha kamida ayuu tagay suuqa wuxuuna soo iibiyay jaakeetkii kaliya oo lahay uu dhaxanta ka gashan jiray wuxuuna lacagtu ka soo helay siiyay rooble sidoo iskuul ugu tago maadaama uu ahaa raagan saboola rooble ayaa markii noloshiisa u horeysay suuqa u baxay wuxuuna arkay dad kala duwan iyo magaalooyinka kala duwan noocyo bilaadanka kamid oo siyaabo kala duwan alla u sameeyay waxaasoo dhan noloshiisa ayay soo dabadeen markaliya ayuu ku soo baxay dad saf dheer ku jira oo meel toban waa uu soo dhex maray kolba qof ayuu ka soo dhex dusay maadaama uu ahaa qof yarna waxay taas u suura gelisay in xagga ugu horeysa uu isa soo taago oo bal eego waxay dadkani sugayaan waxuu markaliya arkay buubee sidiisa oo kale u labisan oo dadka maaweelinaya uguna baaqaya inay soo galaan qolkan kal ayuu siiri waa joojiyo waxa ku yiri ma kali kartid haddaanad lacag wadan halkan waxa ka socota filma caruurta lagu maaweeliyo waa uu fikray wuxuuna xasuustay in lacag uu abi soo siiyay lagu yiri iskuulka ku tag lacag war haystaa intuu soo saaray ayuu dhiibay kadibna waxa uu galay halkii uu ka socday filimku ee sinimooga hore waxuu arkay buubeye isaga u eeg waxa arkaynta lagu xirxiray kor loo qaadayo lagana hadalsiinayo dadkii caruurtana lagu maaweelinayo qoslaya isna isagoo sidiisa u soconaya ayuu dhex tagay markaasuu iskala ciyaaray ilaa waa qori iyaga oo kala ahee dadkii oo dhan ayaa ku farxay ninkii lahaa madaxafkan dadka lagu maaweelinayo ayaa aad ugu farxay inuu arko buubey isagu iswada oo aan loo baahnayn ba in la dhaqdhaqaajiyo oo kalidii soconaya wuxuuna markiiba yiri
waa waxaan weligii ku riyoon jiray inta uu qoslay oo hadda lacag badan ayaan ka samayn karaa waana ku farxay fursadan qaaliga ah ee mar kaliya albaabka uga soo gashay markii uu dhamaaday filimkii la daawanayay maaweeladaha ayuu Rooble ku xidhay shabag si uu lacag uga sameeyo mustaqbalka dambe asna aanu uga baxsanin Rooble ayaa ooyay wuxuuna ka xumaaday sida aanu u maqal wixii aabihii u diray ee ahaa inuu iskuulka aado uu intiisii waxa maqashay Suleekha waa gabadh bawaayinan boqoran waxay ku tiri waxaan filayaa inaad ka xumaatay gafkii aabaha aad ka gashay waxaan ka furayaa halkan waxaan dareemay sida aad uga niyad xunta khaladkii aad gashay bax oo carar marka ka furo tubna u sax fursadda noloshaada dambe aad haysato waxa uu ku yiri sidee ayaan u tagi karaa waan aabahay u raali galin karaa soo lacagtii uu soo siiyay halkan kumaanan galin oo ma bixinin waxay ku tiri waxba ma laha lacagteen aniga ayaa ku siinaya intee u soo xirtay iyo markiiba u keentay lacagtii ka maqnayd oo nooceedii ahaa markaas uu tilmaantay inuu qaado dariiqii aabihii uu kula ballamay haye ayuu ka ballan qaaday oo waa uu socday wadada waxa uu sii socdaba marka uu meel dhexe marayo Rooble ayuu haddana la kulmay oo arkay waxaanu hore u filaynin dacwo iyo bisad ayaa maqlay inuu lacag sito oo sheeda ka arkay kadibna way u fikireen sidii ay lacagta uga furan lahaayeen kaninkay isku taageen waxay ku raadeen xageed ku socotaa markaasuu kor eegay oo yiri noo sheeg xageed ku socotaa arrin baan ku haynaa iskuulkan tagaya aabahay ayaa lacagta soo soo iskuulka qabo waxay ku tiri haddii lacagtaada nasiiso ku sameeyna ka war wax dhamaantiin nacabiya markaasuu yiri waa lacagta kaliya aan haysto maya idima siin karo wax kale ma haysto waxay ku tiri haddii lacagta ii dhiibto waxaan ku siinayaa geed aad beerato geedkaas markasta uu baxo waxa kaaga soo go'aysa lacag aad noloshaada oo dhan ku intifaacdo inta yar aniga isii adiguna midhaha qaado runtii waad u aayi doontaa dacwayntii khiyaamaysay oo lacagtii qaadatay ayay cidla kaga dhaqaaqday Rooble iyada iyo bisadna way iska socdeen Rooblena mar kale ayuu ku dhacay god loo dhigay Suleekha ayaa u timi waxay ku tiri maxaa dhacay sawtanu ballanay maadaama Suleekha ay shabag ka soo saartay wuxuu isku dayay inuu beenu sheego waxa uu iskuulkii baan tagay dharkiina waxaan ku soo ilaabay iskuulka laakiin waan tagaya bartoola mar kale waxay ku tiri been hay sheegin ee sheeg noloshaada run markaasuu fikiray markaasuu maya been kuma sheegay runtii iskuulkii baan tagay lacagtina iskuulkii baan soo siiyay dharkiina iskuulkii baan kaga imay waxay ku tiri haddaad sidaas samayso waan ku ciqaabayaa sankiisii ayay ka dhigtay qori dheer oo soo baxaya markaasuu is dhaqaajin kari waayay markaasay ku tiri haddaad runta sheegto waan sheegay laakiin beenta buu sii waday sankana waa uu sii dheeraaday markasta uu been sheego ilaa markii dambe uu gariiri gibigiisuba uu dhici gaadhay markaasuu yidhi maya hadda ayaan runta ku laabanayaa wuxuuna go'aansaday maadaama ay Suleekha mar hore noloshiisa caawisay inuusan sii wadi karaynin beenta uu sheegayo waxa uu yidhi wixii ugu dhacay ayuu uga warramay wuxuuna ku yidhi waxa lacagtii iga dhacday oo ay heshay dacwo khiyamadeeda ayaana runtii ku dhacay Suleekhana mar kale ayay sankiisii u soo celisay oo ay noloshii uu kula jiray hore ugula ballantay waxayna u soo celisay lacagtiisii waxay ku tiri mar dambe noloshaada been ha ii sheegin ha kana leexan dariiqan ku ballanay ee fuli wixii aabaha ku diray oo ka soo bax ballanta aabaha markan dhab ayuu u qaatay wuxuuna doonayay xaqiiqatan inuu aado iskuulkii waa aabihii kula ballamay dariiqa marka uu sii socdo ayuu wax dareemay wuxuu arkay ninkii ku jiray halkii lagu maaweelinaya caruurta ee sinimooga ahayd ee shabaga ku xidhay oo soo baxay waa ka cararay yaawiye ayuu ku yiri ninkana inta ku xanaaqay oo u qabtay ayuu ku tuuray badda si uu ugu dhinto maadaama uu Rooble ahaa loox tani wax dhibaato kuma keenin biyaha ayuu iska dul sabeeyay oo waa iska sii dabaashay isagoo xataa ku raaxaysanaya sida ay biyuhu u sidataan iyo sida uu gacmihiisa u dhaqdhaqaajin karo oo aan isaga wax dhibaato ku haynin waxayna u haydba meel kale oo ku ciyaari karo waa uu sii socday ilaa marba marka ka dambeysay uu sii galayay meel madow markii dambe ayaa u gaaray meel aan waxba arki karaynin markaasuu qayliyay halkaan joogaa maxaa dhacay maxaan waxba arki lahayn maxaa isbedelay
oo iska sii socday laakiin mar kaliya ayaa waxa uu dareemay in halka uu ku jiro ay tahay calool nibiri oo nibiri liqay dhuuntiisana oo ku dhex jiro oo ka dhex qayliyay cidna ma maqal aabihii raage ayaa arkay in ilmihiisii uusan soo laaban wuxuuna dareemay in wax ku dhaceen suuq ayuu aaday isagoo ku qaylinaya rooble balse uma tegin cidna uma sheegin waxa uu yimi dekad yar oo kalluumaysatadu ay iman jireen wuxuuna weydiiyey bal inay rooble arkeen balse mid ka mid ah ayaa ku yidhi waxaan arkayay markii rooble badda lagu tuurayay waxaana ku tuuray ninka ganacsada buubeeyada oo dadka ku maaweeliya aad ayuu raaga uga xumaaday wuxuuna kalluumaysihii ka dalbay bal inuu siiyo doon uu badda kaga raadiyey ilmihiisa doontii ayaanu qaatay oo sidii ay rooble ay ku caawiyeen raaga ayaa badda galay isagoo ku qaylinaya magaca ilmihiisa rooble waa uu sii socday balse waxba ma helin marba marka ka dambaysana waxa uu sii gaadhayay mawjadaha waaweyn ilaa markii dambe baddu ku qarqoontay oo mawjado ay kadiyeen biyaha ayuu ku dhacay raagana wuxuu ahaa nin da'a oo aan hadda baal fiicanna aqoonin badda gunteeda ayuu ku dhacay marba marka ka dambaysa ayuu sii quusayey ilaa uu ku dhacay sagxadda hoose ee badda waxaa mar keliya liqay isagana nibiri oo caloosha u galay waa uu qayliyey markii uu dhuunta iyo caloosha nibirigii istaagay ayaa waxa uu maqlay oohinta ilmo yar oo u eeg ilmihiisii waa uu fikiray markaasuu kor u kacay dabeetana waxa uu markiiba dareemay in waxa qaylinaya uu ilmihiisii yahay rooble intuu ku qayliyay uu rooble markaas ay iska heleen mar kale caloosha nibiri aad ayuu u farxay in raagi halkay doonaanba xaaladooda ha taaganaatay oo ilmihiisii mar kale la kulmay rooblena waxa uu aabihii uga cudur daartay dhab ahaantii khaladaadkii uu noloshiisa sameeyey intaa markii ay maqashana Suleekha ayaa mar kale u timi markaasay labadoodaba badbaadisay oo ka saartay calooshii nibiriga roobla iyo raagana waxay iyagoo badqaba yimaadeen bedka dhulka ayay u soo baxeen gurigooda ayay tageen iskuulkiisina waxa uu tagi jiray si joogto ah rooble waxaanu ka farxin jiray aabihii raage maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo guriga ka caawinaya oo gogoynaya cunooyinkii waxau rooble aabihii uga sheekeynayay wuxuu iskuulka ku soo arkay waxaana soo booqatay mar keliya Suleekha daaqadda ayayse soo taagtay waxayna markan u samaysay wixii uu rooble noloshiisa dhan ku haminayay oo ahaa inuu noqon karo ilmo caadiya shirkiisa ayay taabatay mar kaliya ayuu toosay wuxuuna isarkay isagoo amarka Ilaahay ku noqday ilmo caadiya oo la jiid hilib lugo indho wax dareemaya iyo dhiig iyo dheecaan intaba lugiisa ayaa arkay wuxuuna isarkay inuu yahay hadda ilmo caadiya waa farxay markaasuu qayliyay oo aabihii u yeeray aabbo ayaa yiri markaas isagoo ordaya waa aabihii u tagay raage ayaa la yaabay markaasuu isna qayliyay oo yiri hadda waxaan haystaa xaqiiqatan ilmo dhab ah aad ayaa nolosheeda ugu faraxsanahay inaan haysto wixii aan nolosheedu dhan doonayay oo ah dadaalkan carruur galay ugu dambeyntiina waxa uu noqday raage mid alla ku abaalmariyay ilmihii weligii doonay